baarayaasha ay taageerto qaramada midoobay ayaa tilmaamay calaamado muujinaya in dowladda Syria ay wali sii wado dambiyo ka dhan ah aadanaha oo ay ka mid yihiin kufsi, jirdil iyo dil, iyadoo dagaalka 9 sano soconaya uu wadanka wali ka sii socdo. Kooxda ayaa talaadadii sidoo kale soo xigatay dambiyo dagaal oo ay suurtagal tahay in ay galeen isbahaysiga ay Turkiga taageerto ee kooxaha mucaaradka ah, waxayna ugu baaqday Ankara in ay wax badan ka qabato kana hortagto. Warbixinta ka soo baxday guddiga baaritaanka Syria oo ah tii 21aad waxaa lagu saleeyay 538 waraysi, dukumiintiyo, sawirro dayax-gacmeed iyo cadeymo kale. Waxa ay soo koobaysaa qaybtii hore ee sanadkan 2020 xilli xabad joojin u dhaxaysa mucaaradka iyo dowladda iyo xulufadeedu ay inta badan ka qabsoontay gobolka Idlib ee ay mucaaradku haystaan tan iyo bishii Maarso. Guddiga ayaa sidoo kale xusay sida Syria ay u wajahayso musiibada coronavirus, xiisado dhaqaale iyo cunaqabataynta adag ee cusub ee uu Mareykanku duldhigay. Goluhu waxa uu ku booriyay in la qafiifiyo cunaqabataynta, taas oo sii xumeynaysa saameynta ay ku leedahay gargaarka bini'aadanimada ee lagula tacaalayo COVID-19. Waxayna ku boorisay wadamada Yurub in ay dib ula soo noqdaan muwaadiniintooda iyo carruurta ay dhaleen ee ku dhalatay dalkaasi. Muwaadiniinta reer Yurub ayaa u badan haween iyo carruur oo ay haysteen dagaalyahanada hubeysan ee ISIS.